Hello, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawadayaal ku soo dhawaada Bulsho Podcast. Maanta waxaan idin haynaa program gaar ah oo ku saabsan wiil dhalinyaro ah oo magaaladan ku soo koray, ku ababay, ku waxbartay, haddana aabba ku noqday oo dabacsan inuu xafiis muhiim ah u ordo oo bulshada u qabto. Maxamed, ku soo dhawow Bulsho Podcast. farxan aad iyo aad ayaan u mahadsan tahay aad igu soo dhaweysay Bulsho Podcast. waan kaaga mahad celinayaa. Maxamed, adigu waxaa tahay nin firfircoon oo magaalada badanka wada yaqaano, dadkaan waa aqoonin. Waaye Maxamed Cali? Maxamed Cali waa wiil dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Columbus, Ohio, oo bulshada mar walba u istaago noocaha kala duwan, ha ahaato hadday ahaato waxbarashada, hadday ahaato community-ga waxyaalaha quseeyo, oo yacni mar walbaba jecel in oo community-giisa horumar gaaro. waxbarashadayda hoose dhexe waxaa ku soo qaatay qaxootiyaadka Kakuma Refugee Camp ayaan ku bilaabay waxbarashadayda. kaamka markii la furay ayaan yacni markii dadka ugu horreeyo kaamka lagu furo ayaan ahayn. marka iskuulaad ma dhisneen, marka waxbarashadayda waxay ku hoos bilaabmatay gate hostes. iskuulaad daraadis markaas xilligaas oo jirin ayaan gate hostes ayaan ku hoos bilaabay waxbarashadayda ABCD-ga halkaas ayaan kusoo bilaabay. ma jirin yacni miis aan ku fadhina xilligaas. waxaa jiri jirtay, waxaa isticmaali jirnay dhagax ayaan soo qaadanaynay, aan ku fadhiisanaynay, oo yacni aan waxbarashadeeda halkaas ayaa ka bilaabmatay dugsiga hoose ilaa adiga dhexe high schoolkana meeshaan ayaan ka dhigtay. marka heer jaamacad waxaan u gudbay markaan imaanay waddanka Maraykanka. heer jaamacad ayaan sii galay, waxaana ka dhigtay jaamacadda Ohio State University. waxaana bartay kuuliyadda injineerada, yani electrical engineering ayaan bartay, taas oo hadda aan ku shaqeeyo. markaan horta aan jaamacadda bilaabay, ardayda yani student of color dhibaato badan ayay kala kulmaan jaamacadda. midda ugu weyn horta waxaa waaye yani xilliga aniga aan jaamacadda galayay ma jirin qof iga horeeyo oo yani aan ku tiirsado oo aan dhihi karo qofkan Soomaaliga walaalka injineerka wuxuu suubiyo kala suubi, ama aan la tashto oo mentor aan ka dhigto ma jirin. marka waxaa dhacday caqabado badan ayaan la kulmay oo aan yani u noqday qofkii koowaad oo jeexo waddadaasay toole. aad iyo aad ayay u adkeed. marka waxaa ka mid ah maalmaha ka mid ah waxaan qaadanayay galaas. macallin ayaa ii imaaday, macallin caddaan ah. galaaskii adiga waxaa waaye speech class uu ahaa. si fiican galaaska marka engineering aniga baranaya, marka si fiican galaaskaas uguma baasin, ama aan dhaho macallinkii uu ii wacay wuxuu dhahay, hey Maxamed, maybe adiga iskuul laguguma talagelin ayuu dhahay, just because wuxuu arkay qof madow ah inaa ahay, oo wuxuu iska dhadhacsiiyey in oo yacni waxbarashada loogu talagalay dadka cadcadka minority-ga oo waxba ay ka keeni karin waxbarashada. laakiin yani aniga ma ihi qof oo sidii yani si fudud wax looga jeedin karo, ama qof ereygiis yani uu dhahay in oo yani niyadda iga jebin karto. ereygaas uu dhahay darteed waxaan u isticmaalay si positive ah ayaan u isticmaalay, oo ilaa aan ka qalin jebinayo waxaan dhahay ninkii yani ku dhahay ereygaanetole maybe adiga laguguma talagelin waxbarashada, waxaa waaye yani in uu yani ereygiisa ay run ahaan tusi. marka taas ayaa waxaa motivation igu siisay. motivation ahaan ayaan u isticmaalayay ereygii yani inuu dib ii rido uu rabay. marka taas caqabado badan ayaa dhalinyarada kala kulmaan iskuulaadka, sida hadda macallinkaas oo kale oo igu dhahay maybe iskuul adiga laguguma talagelin. marka waxaad karti qofka in uu tuso ayaa u baahan yahay. qof wuxuu ku dhaho wax kuma noqonaysid, qof wuxuu ku dhaho yani adiga keli ayaad meel iska soo saari kartid. marka waxaa jirto barnaamij oo aniga aan organization oo aniga aan furay oo la dhaho Somali Engineers Association, oo aan ugu talagalay dhalinyarada yaryar oo iga dambeyso sidii caqabadihii aan soo maray oo kale in ay ayagana ku dhicin. marka barnaamijka waxaan suubin jirnay hadda samarkii hadda lasoo dhaafay 2019kii oo kale. saad u ogeed waxaan tegi jirnay sabtida iyo axad oo kale, waxaan tegi jirnay dugsiyaasha sida aan u barna carruurta yariska ah 12 jir ilaa adiga 15 jirka camal oo kale engineering projects in aan barno. sida hadda mid aan barnay waxaa ka mid ah sida looga dhaliyo korontada, sida looga dhaliyo dabeesha korontada, ama sida looga dhaliyo maxaa la dhahaa qoraxda korontada. projectyo yaryar ayaan barbarayna carruurta. marka taasoo kale
waxay siisay in aan carruurta iga yaryar ama walaalahan Soomaaliyeed in oo aan u furno niyadda aan tusno injineernimada in tahay wax oo yani xiisad la baran karo ayna adkeen. maxamed hadda xafiiskaad shaacisay inaad u ordaysid jeceshay inaad ku guulaysatid maxaa kugu dhaliyey maxaa sabab keenay baahida looga baahan yahay booskaas? farxan saad u ogtahay horta waa su'aal aad iyo aad muhiim u ah in aan ka jawaabo. su'aashaas waxay tahay yani aad weydiisay jawaabteeda waxaa waaye waxaa igu dhaliyey baahida darteed ay communitygeena u qabaan waxbarashada siiba dhalinyarada yani oo magaaladan ku kortay iskuulaadka waxay kala kulmaan caqabado kala duwan. waalidiintii oo luqadii ayagana fahmaynin waxay kala kulmaan caqabado kala duwan. marka waxaa taas darteed ayaa waxaan isku xilqaamay in aan u istaago dadkeena sidii ay yani dhibaatadaasi toole u yaraato ardaydiina ay noqoto arday tayo leh oo yani heer jaamacadeed ilaa sii gaari karo waxbarashadooda horumar sii suubin karo. sidaan adiga ku ogeyn markasta adigu waxaad ku qooshanayd ama ku duubnayd gudiyada kala bedelan oo u shaqeeya districtka sanadihii lasoo dhaafo kale maraad adoo jeedinahaya dhibaatooyinka guud ahaan oo bulshada haysata iyo kuwa qaaskaaba qaas ahaan dhinaca luuqadda iyo waaridka oo kale meelaha isdhigi kartaa inaad wax ka bedeli kartaa laga yaabaa inkastoo hadda aysan ahayn diyaar aanan ku hay inaad noo sheegtid mid laakiin meelaheebaad guud ahaan aad is leedahay meelo waaweyn baa jiro wax laga qabto loo baahan yahay. dhibaatooyinka hadda midda ugu weyn oo hadda taagan oo yani soo saameysay oo nagu cusub communitygeena waxaa ka mid ah markii uu dhacay cudurka caabuqa covid-19 ayaa waxaa nala soo diristay arrin aad iyo aad caqabad ugu noqotay waalidiintii iyo ardayda taasoo u keentay ardaydii oo yani in ay dib dhac ku suubiso waxbarashada waayo remote learning weligood arrin ay hore u suubiyeen oo waalidkoodana khibrad ay u leeyihiin ma ahan. marka midaas ayaa hadda taagan oo aad saameyn weyn ku yeelatay EL studentiga language learners studentiga ESL carruurta ah oo waayo waalidkii waxaa laga yaabaa in uu weligiis yani uu computer ama homeworkii cunuga uu ka saacideyn karin. awal waxaa furnaan jirtay libraryada la geen jiray carruurta sidii ay u helaan caawinaad oo homeworkooda waxyaalahaas looga caawiyo laakiin caabuqa dartiis waxaa xirmatay meelihii caawinaadda ay ka heli jireen resourceskii ay heli jireen waalidiinta sidii carruurtooda ay u horumarin lahaayeen. marka midaas ayaa hadda horta midii koowaad ah waa caqibadan hortaagan ah sida aan uga gudbi laheenna aan ku tala jirnaa. marka insha allah caabuqa aad iyo aad wuxuu u saameeyey ardayda ESL studentiga ah ayuu aad iyo aad numberkooda u hoos maray waxbarashada haddii la eego haddii la fiiriyo xataa attendancega oo carruurtii oo iskuulka ay imaanayeen online ay soo gali lahaayeen xilligeeda taasay toolana dib u dhac ayay ku imaaday. haddii aad fiirisidna gradekoodana hoos ayuu u dhacay waxaa sababayo yani waalidkii oo resource fiican uu helin sidii cunugiisa uu ku saacideyn lahaa ama waxaa laga yaabaa waalid qaarkood inayba xaafadaba internet ku laheen oo cunugii online classeski waxyaalihii dhan cashirkii dib u dhac ugu imaaday. sidaa sheegtay caqabaduhu waa badan yihiin waxaa jira resource haddaan kusoo laabano haddii la barbar dhigo districtyada kale ama iskuullada systemka oo kale sida New Albany oo kale ama Grove City oo kale in ay u sahlan yihiin dhalinyaradaas oo kale ama waxbarashadoodu hadday noqo heerka ka sarreeyaan meeshan degmadan City of Columbus budgetkuna waxaana sababay waa budgetka wey maxaad is leedahay adigu aad ku dhiirigelin kartaa dadkan hadda districtga jooga oo kale aad adigu kusoo kordhin kartaa guud ahaan adoon u gadagelin mid midaas aad sheegayso waa horta waa arrin jirto yani iskuulaadka waxay uga duwan yihiin iskuulkeena haddii la dhaho lacagta resources ay soo gasho kale aad ayay u hooseysaa. taas ayaa keenayso in iskuulaadka kale ay ka wada fiican yihiin sida New Albany oo kale iyo Westerville Schools Districtiga oo kale taasna waxaa keenayso taxiga horta laga qaado laakiin haddii la manage gareeyo lacagta soo gasho oo meel sax ah lagu yani qoondeeyo waxay noqonaysaa resourceka meesha looga baahan yahay ayay gelaysaa. waxyaalaha qaarkood oo hadda oo ku baxdo resourcekeena haddii yani meesha ugu muhiimsan la geliyo waxbarashada sida tayadeeda kor loo qaado kale waxaan u maleynayaa caqibadaasi toole in aan ka hormari karno. sida aad ogtahay magaalada Columbus waa magaalooyinka ugu koriinka badan ee Midwestiga ama America oo dhan sababtoo ah waxay kambaniyo badan ba u soo guuray
kambaniyadaasuna waxaa laga sameeyaa tax exempt hadda gap oo kale Facebook laana IT company baa usoo wada guuray marka waana tax exempt lagu sameeyay kambaniyadaas lacag baa la siiyaa meelaha lacagtaas laga siiyana waxaa lacagtaas ka timaada magaalada Columbus qaas ahaan tii waxbarashada loogu talagalay sidaas daraadeed hadda laba beri ka hor u jeeday in ay district ama schoolka City of Columbus boardkooda ay yiraahdeen waa joojinaynaa activities ku saabsan sportska wixii la mid ah waxaana hor jooga city councilka iyo mayorka oo kale maxaad ku baraarujin lahayd ama adigu u soo jeedin lahayd haddaad ka mid tahay guddigaas sida leadershipka magaalada guddigaas sida hadda aad sheegtay tax exempt lagu soo binayo qolada hadda tech companieska sida Facebook oo kale Google Microsoft hadda u soo guuri doonto yani haddii oo taxigaas ito lacagtaas lagu soo celin lahaa ama lagu soo qoondaan lahaa sida sportska hadda oo kale ama artska iyo waxyaalahaas ito loo dhan annaga iskuulkii ayay macnufaad gelin lahayd carruurtii waxbarashadoodana tayadooda kor u qaadman lahayd marka midda haddaa kaaga sheekeynaya waaye waxay soo hoosgelaysaa resourceka meeshii loogu talagalay oo u muhiimsan in la geliyo ayaa mar walba xaq u leh mar walbana ardayda ayaa yani interestigooda waa in la hormariyo oo yani waxyaalaha kale dib loo dhigo hadda magaalada City of Columbus oo kale markay dhisay short north kale waxay ku bixisay 678 milyan haddana waxaa dhismo badan ka socda German Village lacagta badankeedna waxay ka timid lacagta loo qoondeeyay waxbarashada ama districtgan marka problemku ma kulay guddiga mise waxaa is leedahay leadershipka magaalada way horta stockholderska iyo in isla shaqeeyaan aad iyo aad ayay muhiim u tahay board memberska marka haddii oo yani board memberka ay meesha sharci dejinta ee waxyaalahaanayto ay qoondeynayaan oo kale ee xooggii ay saaraan ardayda tayadooda in kor loo qaado markaas sirigan horta gooni ayay ayadana mid gooni ayay ka leedahay dhibaatooyinkeeda laakiin hadda yani midda ugu weyn waxaa waaye board memberska go'aamada ay gaaraan ayaa saameyn weyn ku yeelanayso ardayda waxbarashadooda hadda boorka qof Soomaaliya nooguma jiro laakiin guul weyn baa laga gaaray waayo hadda cuntada iskuulka oo kale dofaar kuma jiro meel kasta iskuul kasta taasna waxaa sababtay ciyaalkii in populationka ama dadka intirada Soomaalida inay ku badan yihiin haddaba dhawaan waxaa jiray baaritaan badan oo aan sameynay aan kuwa private company aan la sameynay waxaa la soo ogaaday inay degan tahay magaalada Columbus iyo nawaaxigeeda in la eg 215,000 oo families marka so ma laga yaabaa inaan aragno ciyaalka ama iskuulka districtga la furay oo maalinka ciid oo kale iskuulada la xiro arrinkaas waa arrin aad iyo aad u muhiim ah farxaan waxayna ka mid tahay waxyaalaha aan aad u taageerayo oo aan isku dayayo inaan isbeddel ku keeno magaalada midda koowaad aad sheegaysid hadda sidaad sheegtay ciidul fidriga haddaad aragtay sida New York oo kale ama haddaad aragtay Michigan oo kale ciidul fidriga iskuulka maalin waa la fasaxaa 3 maalin ama 2 maalin ayaa la fasaxaa 3daas maalin ama 2daas maalin waxaa loo isticmaalaa macallimiinta in ay development isku suubiyaan oo teachers development day ahaan oo macallimiinta loogu isticmaalo marka haddii aan insha Allah ku guuleysto kursigan waxyaalaha aan isbeddelka weyn aan ku keeni doono school districtgeena waxaa ka mid ah arrinkaas ciidul fidriga aad sheegtay waayo carruurteena maalmaha ciidul fidriga oo kale ama waxaa dhaafo homeworks dhaafo ama waxaa dhaafo waxay misgareynayaan imtixaana laga yaabaa maalinkaas inay misgareeyaan ama waxay yani homework quiz ama yani exam inay misgareeyaan laga yaabaa imtixaanaadka marka sidii ay carruurteena si farxad leh maalinkaasay toole ula iidi lahaayeen waalidkooda ayagoo ka walwalayn casharkii dhaafay waxaan rabaa in aan kusoo kordhiyo school districtgeena in aan yani ku darno ciidul fidriga public holidayska sida hadda xilligii hadda dhow aan soo dhaafayna oo kale waxaa loo fasaxay carruurta Christmas holiday ahaana loo fasaxay marka teena insha Allah annaga waxa waaye Columbus waa very diverse city marka insha Allah waa in aan isticmaalno quwadeena si aan number weyn ayaan iskuulaadka ku leenahay marka insha Allah isbeddelkaas waxaan rabaa in aan miiska hor keeno oo la ansixiyo insha Allah sidaan ognahay iskuulku qualitygiisu waxaa haddii la isbarbar dhigo Columbus iyo nawaaxigeeda Columbus waa meesha ugu liidata muhiimaddu waxaa weeye horta macallimiinta la keenayo macallimiintu macluumaad fiican waa laga helayaa Columbus annagoo dhan soo wada marnay Columbus iskuuleeda macallimiin fiican oo weli aan xusuus dheer ku leenahay waa jiraan laakiin waxaa jira macallimiintaas xaqoodii ama xuquuqoodii ama sidii laga rabay in dadka guddiga ama
sharciga dejiya aysan u keenin maxaa aad kusoo kordhinaysa oo macluumaadka maxaad ugu doonaysaa in sidoo hore looga bedelo farxaan midda waa su'aal fiican ayadana middaasay toole waxaa waaye waxaan taageersanahay in macallimiinta la siiyo ama loo kordhiyo yani mishaarkooda ama ha noqoto haddii oo yani loo suubinayo sida camal oo kale bonus at the end of the year sida la siiyo kale ama haddii ay tahay college forgiveness debt camal oo kale haddii loogu suubinayo waayo macallinka markuu faraxsan yahay ayaa yani uu carruurtii wax bari karaa haddaad isku fiirisay macallimiin hadda hilyar dhigaan oo kale macallimiinta fiican oo dhan iskuulaadka oo examka oo tax maxaa la dhahaa ku baaseen macallinimada imtixaankooda oo A grade ka haystaan macallimiintaas oo kale annaga ma soo attract garayn karno waayo lacagta la bixiyo macallinkaasay toole kuma qancaayo marka iskuulaadka kale ayaa ka lacag badan oo ka mishaar badan marka macallimiinta top quality-ga ahaa waxay noqonaysaa in ay iskuulkeena ay shaqadiisa diidaan oo ay aadaan iskuulaadka kale kuwa aan haysanana waxaan isku dayaynaa insha allah sidaan u haysano macallimiintaas yani quality-ga fiican ah sidii iskuulkeena ay ula sii joogaan waxaan suubinaynaa in insha allah mishaarkooda loo badiyo daawadayaal caaway barnaamijkan intaasuu ku egyahay waa inoo mar kaloo xiise leh asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu